حديث اليوم وحديث مانتا. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. وحلق وريي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما إن أيتري وحيري رسولك الله صلى الله عليه وآله وسلم qofkii ku soo dara diinta wax aan ka tirsanayn waxaas lagu soo daray waa mid la celiyay yacni cidii ku soo dartay lagu celinayo. waxaa wariyay xadiidka Bukhari iyo Muslim. waa mid lagu celiyay ama lagu celinayo macnaheedu waxa weeye shay baatil ah oo aan wanaag ahaan loo xisaabinayn oo loogu tixgelinayn una badan waliba in wax looga raacdo. maxaynu ka faa'iideysanaynaa xadiidkan? kow, xadiidkani waa asal weyn oo ka mid ah asalada islaamka wuxuuna ka mid yahay ereyada kooban oo macnaha baaxadda weyn ku tusaya ee nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallama lagu manaystay jawaami'ul kalim. labo, wuxuu daliil cad u yahay xaaraannimada in qofku wax uu iska samaystay ama loo sameeyeyba diin laga dhigo. saddex, wuxuu tusayaa sida ay u dhammaystiran tahay shareecadani oo aysan ugu baahnayn in meelahaas wax looga soo qaaday lagu kakabo. afar, waxaa laga fahmayaa in qofka wax uu isagu samaystay diinta inay ka mid tahay ka dhigaya in waxaas loo qabsan doono oo uu ciqaab adag ku mutaysan doono sida nusuus kaleba ay tooska ugu caddaysay. shan, qofka wax ku soo daraya diintu in uu wanaag ka waday ku soo darkaas ama uu u arkay in ay wax fiican tahay anfici mayso maadaama aysan diinta alle soo dejiyey ka mid ahayn. lix, camalka qofku sameeyo ee uu alle ugu dhowaanayo waa in laga helaa laba sharti. kow, ikhlaas oo macnaheedu uu yahay alle darti keliya inuu u sameeyo oo xadiidkii aynu soo dhaafnay ee innamal a'maalu binniyaat ayaa toos u caddeeyey. laba, waa in camalkaasi yahay wax asal diinta ku leh oo rasuulka sallallahu alayhi wa sallama lagu raacay ee aan meelahaas laga soo jafjafan. taasna xadiidkan ayaa iyadana daliil u ah. toddoba, wax aan maalintii nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama la oofsaday diin ahayni maanta diin ma noqon karaan. sideed, wuxuu xadiidku ifinayaa in ay lagaba maarmaan tahay in la ogaado oo la barto waxa diinta lagu soo siyaadiyey ama lagu soo daray si la isaga jiro. sagaal, wuxuu muujinayaa khatarta ay diinta oo wax lagu soo daraa leedahay ilaa waxaa macnaheedu noqonayaa in aysan diintu dhammaystirnayn oo wax ka dhiman yihiin iyadoo waliba uu alle subxaanahu wa tacaala uu qur'aankiisa inoogu caddeeyey in uu diinta inoo dhammaystiray. alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina. haddaba taasi waxa ay noqonaysaa in qofkaasi uu qur'aanka si toos ah u beeninayo. toban, waxaa qofka bidcada wata laga fahmayaa in uu leeyahay nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama risaaladii dhammayska tirnayd ee loo soo dhiibay wuu khiyaanay macaadallah oo aniga idiin keenaya wixii uu ka jaray. nacuudu billah. 11, xadiidyo kale ayuu nabigu sallallahu alayhi wa sallama ku caddeeyey in bidco kasta oo diinta lagu soo daraa ay tahay ka dhunsanaanta jidka saxda ah wax kasta oo
oo dhunsanna in ay naarta galayaan. ogow waa xitaa haddii uu sheegto in ay khayr siyaadsi tahay 12 bal ka waran hadduu qofku yidhaahdo 5 salaadood ee faradka ah si aan khayr u siyaadsado waxaan ka dhigayaa 6 ama 7 salaadood iyo wixii la mid ah. amaba uu ku yidhaahdo duhurka 4 ragco la tukado ayaan si khayr siyaadsi awgeed 5 ragco ka dhigayaa meeshii 4 ka ahayd. shaki ma leh in aysan salaad duhur ahayn, shakina ma leh in ay bidco tahay. bidcona meesha ay ku dambaynayso waa aad soo ogaatay. 13 qofka muslimka ahi waa inuu cilmi ku hubaysnaadaa. imaam an-nawawi ayaa yidhi xadiidkaani wuxuu ka mid yahay kuwa ay habboon tahay in la xifdiyo oo la qaybo oo markaas loo isticmaalo in baatilka lagaga hortago oo lagu burburiyo. waxaa kaloo habboon in daliishadiisa la faafiyo. raximahullah. 14 shaydaanku aad buu u jecel yahay bidcada ilaa culimada qaarkeed ay gaarsiiyeen in qofku bidco uu ku dhaco uu ka jecel yahay inuu macaasi sameeyo. 15 ogow bidcada laga hadlayaa waa midda diinta oo kaliya ee ma aha midda adduunyada. bidco macnaheedu waxa weeye la imaanshaha waxaan hore loo aqoon jirin. marka dad baa markii la yiraahdo bidcada iska daa waxa ay kugu jawaabayaan baabuurta, diyaaradaha, telefoonada iyo wixii la mid ah kulli waa wada bidco oo nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtigiisii lama aqoon. marka bidcada laga hadlaya waa tan diinta ee ma aha midda dunyawiga ah, walow la rabo in ay dunyawigaas lafteedu wax bannaan tahay. sida qaabka dharka loo tolanaya waa in uu qaab bannaan yahay, qaabka telefoonada loo isticmaalaya waa in uu isaguna bannaan yahay. waxyaalaha adduunyada la xidhiira waxaa la iska rabaa iyada in la hormariyo oo lagu dadaalo sidii loo hormarin lahaa iyadoo aan ka mashquulinaynin cibaadada alle. 16 waxaa in la fahmo u baahan in dowrka culummadu yahay in ay dadka u caddeeyaan wixii alle u soo dhiibay rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam ee ay barteen oo asalka ay aayadda iyo xadiidka sugani u yihiin. markii caalimku cilmiga meel fiican ka joogo wuxuu miisaamaa nusuustaas oo dadka uga soo saaraa baahidooda ee isagu wax aan asal labadaas ku lahayn ma keensan karo. fahamka nusuustana waa lagu kala xeel dheer yahay oo caalim ayaa ka fahmi kara wax uusan caalim kale ka fahmin. marka qofka muslimka ah waxa uu mar walba raacayaa waa aayadda ama xadiidka ee ma aha hadalka qofka. xaq ayuuna u leeyahay in uu ogaado aayaddaas ama xadiidkaas asalka u ah waxa loo sheegay. xadiidkani waa miisaanka acmaasha rajada laga qabo in alle hadhow wax inoogu taro. si ay acmaasheennu miisaankaas dhankeenna ugu ridona waxaa lagaba maarmaan ah in alle darti loo sameeyo ayna yihiin wax uu jideeyey oo loo samaynayo qaabka uu u jideeyey. rabbi hayna waafajiyo in aan kala baranno waxa saxda ah ee nabi muxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam ka yimid iyo waxa bani aadamku dhoodhoobeen ee dadka diinta uga dhigeen. inta aynu xadiidka xiga ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa amaane allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين. صلى الله على محمد صلى الله